maamulka Puntland ayaa eedeymo culus u jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyagoo sheegay inuu ka dambeeyo abuurista burcadbadeed hubeysan oo weerar ku qaada maraakiibta isticmaasha biyaha Soomaaliya iyo kuwa caalamiga ah. Hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ka hadlayay furitaanka kala fadhiga baarlamaanka Puntland ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka leexatay hanaanka federaalka ee lagu heshiiyay isla markaana ay dhaawacday wada shaqayntii dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Dani waxa uu ku eedeeyay Xasan Sheekh Maxamuud inuu burburiyay nidaamkii federaalka duulaan siyaasadeed iyo mid militari ku qaaday maamulada dalka isla markaana uu horseeday kala qaybsanaan siyaasadeed. Hogaamiyaha Puntland ayaa sidoo kale sheegay in maamulkiisa uusan aqbali doonin waxa uu ku tilmaamay afduub siyaasadeed iyo sharci oo lagu sameeyay nidaamka dowladnimo ee Soomaaliya. Waxa uu sidoo kale ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya inay fargelin ku hayso arrimaha amniga gudaha ee Puntland iyo dowlad goboleedyada dalka. Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in Puntland ay si madax bannaan u maamulo doonto arrimaheeda siyaasadeed iyo amni iyo maamul ilaa laga helayo dowlad Soomaaliyeed oo ku midaysan yihiin dhammaan dhinacyada dalka. Go'aankan ayaa imaanaya iyadoo uu sii xoogeysanayo khilaafka u dhexeeya Puntland iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya. Sidoo kale maamulka Puntland waxa ay sheegeen in dowladda federaalka Soomaaliya ay caqabad ku noqotay taageerada ciidamada ka howlgala buuraha caalamiska ah ee gobolka Bari, iyadoo ku eedeysay inay hakisay ruqsadaha diyaaradaha lagu gaarsiin lahaa saad gargaar caafimaad iyo agabyo kale oo muhiim u ah ciidamada dagaalka kula jira kooxaha hubeysan. Hadalka ka soo yeeray hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe sidoo kale maamulkaasi uu gaaray heerkii ugu sareeyay, iyadoona Saciid Cabdullaahi Dani lagu eedeeyo in uu qayb ka yahay maamulada dalka kala goynaya, sidoo kalena dhowr jeer uu la jirsaday dhanka dalalka shisheeyaha kuwaasoo duulaan qaawan ku soo qaaday dalkeena Soomaaliya. Saciid Cabdullaahi Dani waxaa lagu eedeeyaa dhowr waxyaabood oo ka mid tahay taasoo ugu dambeysay in dhalinyaro Soomaaliyeed uu gacanta u geliyay hay'adaha ammaanka ee Itoobiya kuwaasoo deegaanada maamulka Puntland ka shaqaysanayay, sidoo kale inuu ka soo horjeestay maamulka cusub ee dhawaangalka ah ee waqooyi bari Soomaaliya kaasoo gebi ahaanba diiday in halkaasi laga dhiso maamul.